waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردي أنا مقعد وياه عثمان شام حسن مادة دقيقة تاريخ ذا وحنو كقاد ما أنت أنا بلعب دونا عشر كيني وأنا برنامج كيني كوب حيي كبر تي فيجا الراديو هرجيسة عشر كيني هرايا ناصي عشرة ديني هرايا ناصي صعدة وشابتر كي أنا كنت شابتر 7 أي ناصي صعانية سيف عنها الله صعدة ardayda dhageysanaysa ee ardayda daawanaysaaba si wanaagsan hawlo socdaan. Casharkeennii hore waxaanu kaga soo hadalay election of parliament doorashada baarlamaanka ka soo hadlanay. Doorashada haddaba baarlamaanka cidda kala hagaysa ama ay doorashooyinka madaxtooyada qabanaysa ama tii baarlamaanka qabanaysa waa guddiga komishanka doorashooyinka qaranka ayaa had iyo jeer kala haga markaa iyagu. Haddaba faction of the Electoral Commission of Somaliland shaqada ay qabtaan guddiga doorashooyinka ee Somaliland ama guddiga qaranka ee doorashooyinka Somaliland shaqada ay qabtaan waxaa ka mid ah the factions of the Electoral Commission are shaqadooda waxaa ka mid ah conducting inay qabtaan and supervising oo ay kormeeraan elections doorashooyinka and referenda iyo markaa codaynta markaa referendum waxaa la yidhaahdaa waa codaynta loo codaynayo shay markaa yani keliya referenda waa to vote a single political issue waa afti baa la yidhaahdaa afti referendum waa aftida marka aftidaas waxa weeye in loo codeeyo shay kaliya had iyo jeer loo codeeyo had iyo jeer arrimaha masiiriga ah ayaa loo codeeyaa oo had iyo jeer yani aftidaas ay ku timaadaa tusaale ahaan oo kale aftida constitutionka ama dastuurka oo kale marka loo codeynayo waa arrin markaa keliya markaa yani keligeed markaa loo codeynayo dastuurka constitutionka marka loo codeynayo constitutionka marka loo codeynayo constitutionka marka la raacayo loo codeynayo de wuxuu noqonayaa a single political issue waa arrin siyaasadeed oo khaas ama gaar ah sida constitutionka marka loo codeynayo oo kale ama wadanka marka tusaale la kala doorasiinayo oo kale in la yiraahdo wadanka maad ku biirasaan ama wadanka maad ka go'aysaan oo kale had iyo jeer waxa la qaadaa referendum baa dadka laga qaadaa ama afti dadweyne ayaa laga qaadaa oo cod lagu weydiiyaa marka codkaas marka la weydiiyo xaga u badan yihiin ayaa had iyo jeer marka la raacaya waa sida tusaale ahaan oo kale doorashadii 60kii oo kale markii Somaliland iyo Soomaaliya ay isku mid ka ahaayeen ee ay isku jireen 1961 waxa la qaaday doorasho ayaa la qaaday ama waxa la qaaday afti dadweyne ayaa la qaaday taasoo dadkii reer Somaliland ka soo 80% ay ka hor yimaadeen constitutionkii xilliga loo codeynay ay ka hor yimaadeen marka waa tusaale marka arrimaha had iyo jeer masiiriga national issues ka waaweyn ayaa had iyo jeer referendumka marka lagu sameeyaa ama marka aftida marka laga qaadaa dadka laga qaadaa haddaba qodobka ku sii xiga waxa weeye continuous registration of voters shaqada ay qabtaan guddiga komishanka doorashooyinka qaranka waxa ka mid ah continuous registration of voters in si xiriir oo isdaba joog ah ay u diiwaangeliyaan dadka voterska ama codbixiyaasha marka diiwaangelinta codbixiyaasha marka ay si joogtaa marka ay u qabtaan waa qodob oo waxay diiwaangeliyaan codbixiyaasha doorashada qodobka labaad settles electoral disputes arising from nominations settles waxay dejiyaan ama ay dhameeyaan
yani settle is to solve. The settles waxay dhameeyaan solves waxay dhameeyaan waxyaabahay dhameynayaan waxaa ka mid ah ay qabanayaan waxaa ka mid ah electoral khilaafka had iyo jeer ka yimaada doorashada ka yimaada disputes ka yimaada muranka ka yimaada arise from the nominations had iyo jeer ka soo baxaa markaa magacaabidda marka ka soo baxa oo tusaale ahaan oo kale wixii cidday magacaaba haddii las qabqabsado oo kale ama khilaaf yimaado oo kale iyaga xalinaya marka wixii khilaafaad ee soo dhex gala shaqooyinka doorashada ay qabanayaan commission ay qabanayaan iyo cidda ay magacaabayaan ama meelaha yani cidda u kala magacaabayaan iyaga xaliya waa shaqadooda ka mid tahay waxaa ka mid ah shaqada ay qabtaan registers waxay diiwaangeliyaan candidates for elections musharaxiinta u taagan doorashada ayay had iyo jeer diiwaangeliyaan ama musharaxiinta madaxtooyada ha noqdo ama kuwa baarlamaanka ha noqdaan ama kuwa golaha deegaanka ha noqdaanbe ciddii u taagan ee candidate ee musharax doorasho ah doorashadaastay doonto ahaatee ayay had iyo jeer ay diiwaangeliyaan waay oo ay diiwaangelinayaan ashirkeeni baa inoo sii socdee waxaa ka mid ah shaqada qabtaan commissionku facilitates waxay fududeeyaan the observation kormeerka monitoring iyo inay markaa ay monitor gareeyaan oo monitorka waa maxay waa observing overseeing how the activities are going on si ay arrimo markaa u socdaan ama shaqada la qabanaysa u socoto in la monitor gareeyo markaa hadii la kormeero hadii la maamulo an evaluation of elections shaqada qabta waxaa ka mid ah facilitates waxay fududeeyaan the observations inay markaa observation ku sameeyaan waxa ay la socdaan oo kormeer ku sameeyaan monitoring ka inay maamulaan iyaga laftooda ay la socdaan wixii markaas ma sii kala fogeeyadaasi an evaluation of elections iyo la markaa inay qiimeeyaan oo evaluation ku sameeyaan monitoring and evaluation inay sameeyaan waay waxaa ka mid ah shaqada qabtaan guddiga commissionka doorashooyinka qaranku develops a code of conduct waxay had iyo jeer ay sameeyaan oo ay develop gareeyaan code of conduct xeerka anshaxa for candidates ee loo baahan yahay in markaa la mariyo hadday qaldamaan musharaxiintu and parties iyo xusbiyada contesting elections ku loolamaya doorashada markaa code of conduct waa xeerkii markaa anshax marinta ee loogu talagalay in lagu kantaroolo musharaxiinta iyo xusbiyada si aanay anshaxa uga bixin oo aanay markaa nidaamka doorashadu ay leedahay aanay uga bixin ayaa loogu talagalay markaa code of conduct markaa kaana way diyaariyaano iyaga soo develop gareeya shaqadooday ka mid tahay waxaa ka mid a shaqada ay qabtaan guddiga commissionka doorashooyinka qaranku appoints elections officials such as waxay markaa magacaabaan elections of officials saraakiisha markaa doorashada such as returning officers sida saraakiisha loo magacaabo meelaha tusaale ahaan oo kale degmooyinka iyo gobolada presiding officers iyo saraakiisha loo magacaabo polling stationska waa meelaha markaa laga ama goobaha codaynta and their deputies iyo ku-xigeenadooda polling clerks iyo dadka markaa ka shaqeynaya iyaguna polling clerks goobta doorashada markaa jooga ee karaaniyada ama wax qoraya ayaa ka mid a shaqada qabtaan waayahay haddaynu soo qaadano returning officerska ay magacaabaan waxaa ka mid ah returning officerkaasi waxaan officer who is in charge of the election in a region, in a district degmadii oo kale waaya waxaa ka mid ah dadka ay magacaabaan commissionku waxaa ka mid ah saraakiisha ay u magacaabaan degmooyinka iyo gobolladoo kale marka ay magacaabayaan u magacaabayaan baa ka mid ah marka returning officerskaasi waa maxay an official who is in charge of oo qofka sarkaalka ee mas-uulka ka of the election doorashada in a district sida degmooyinka oo kale qofka mas-uulka ka ayaa la odhanaya returning officers marka waxay kuwa ay magacaabaan bay ka mid tahay kuwa ay magacaabaan guddiga commissionka doorashooyinku ayay ka mid yihiin waaye waxaa kaloo ay magacaabaan oo ka mid ah saraakiisha ay magacaabaan presiding officers ayaa ka mid ah presiding officers
presiding officers officerskaasi iyaguna maxay yihiin waa kuway magacaabayn ba ka mid yihiin waxa weeyaan an officer who is responsible for the election of polling stations presiding officerskuna waxa weeye oo kan waxaan soo sheegnay inuu yahay districtskii oo kale ama degmooyinkii oo kale inuu yahay laakiin kan wuxuu isagu officerkiisa ama saraakiisha waxa adiga jeer iyaga loo magacaabaa an officer who is presiding officer macnaheedu waxa weeye an officer waa sarkaalka who is responsible who is in charge of mas-uulka ka for the election doorashada of polling stations goobta doorashada ama tusaale ahaan oo kale goobta codbixinta oo qofka sarkaalka ee haysta goobta codbixinta waa halka laga codeynayo uune ayaa la odhanaya presiding officers marka dadku magacaabo komishiga doorashooyinka waxaa ka mid ah saraakiisha goobaha doorashada markaa haysta oo de waxaa laga yaaba hargeysa oo kale inta tusaale ahaan inta ay ilaa boqolaal ama dee yani intaasoo boqol oo goobood inay yihiin intaasoo boqol oo goobood goob doorasho kastaaba waxay leedahay presiding officer bay leedahay marka presiding officerkaasi waa qofka mas-uulka uga noqonaya guddiga komishinka doorashooyinka uga mas-uulka noqonaya inuu hawshaa markaa u qabto waayahay okay qodobka kusii xigaa waxa weeye and their deputies and polling clerks iyo qolada saraakiisha kale ku-xigeenada kuwa hadda ku-xigeenada yeelanaya polling clerks iyo kuwa karaaniyaanta kale ee qoraya diiwaangelinaya dadka iyagu diiwaangelinaya polling clerks waa kuwa qaybta diiwaangelinta u qaabilsan ama saraakiisha qoraysa markaa oo de goobtii oo kale waxaa laga yaabaa inay guddoomiye iyo xoghayn ay yeeshaan xusbiyadoo kale ay ku yeeshaan representatives ama wakiil ay ku yeeshaan marka polling clerks waa kuwaas waaye returning officer haddaynu soo qaadana haddaba returning officerku waa inaga sheegnay waxaanu nidhi returning officerku waa qofka loo magacaabay ama lagu talagalay inuu district ama regionskaas inuu mas-uul ka ahaado qofka loo magacaabay ee guddiga komishinka doorashooyinka u magacaabeen ba ayaynu nidhi oo aynu ku sheegnay marka shaqada haddaba uu qabanayo qofka la odhanayo returning officerkaasi shaqadu qabanayo ayaa shaqadana markaa waaye maxaa ka mid ah they are appointed waxaa loo magacaabay for each constituency waxaa loo magacaabay yani meel kasta oo markaa ama doorasho markaa ay ka jirto ayaa markaa loo magacaabaya ama constituencygu hadaynu soo qaadano ereyga constituency hadaynu soo qaadano constituency waxa weeye group of voters who elect their representatives for their areas constituencygu waxa weeye waa dadka codbixiyaasha ee had iyo jeer soo doorta iyagu soo dooranaya cidda degmada matalaysa ayaa la idhaahdaa waa constituency markaa had iyo jeer waa maxay mas-uul ka yihiin they are appointed waxaa loo magacaabaa for each constituency ayaa loo magacaabaya constituencygaasna waxaynu nidhi waa dadka codbixiyaasha ama voterska kuwaasoo doorta cidda iyaga matalaysa oo degmadan oo kale cidda matalaysa cidda soo dooranaysa ayaa constituency markaa noqonaya oo dee degmada baarlamanka oo kale oo baarlamankii oo kale tusaale ahaan oo kale degmada hargeysa oo kale dee cid baa matalaysa ciddaasa markaa noqonaysa markaa cidda markaa dee sharci ahaan markaa constituencygu waa kaas weeye taasaa loo magacaabaya they perform the following deeds waxay qabtaan waajibaadyada soo socda ayay qabtaan they perform waxay gutaan the following deeds xilalkan iyo waajibaadyada soo socda ayay qabtaan maxaa ka mid ah they receive nomination papers waxay qabtaan waraaqaha yani magacaabidda from candidates ee lagu magacaabayo doorashada marka lagu magacaabayo musharaxiinta waa qodob candidateskaasi markaa ayay qabtaan oo ay markaa ay qabtaan they receive nomination papers waxay qabtaan waraaqaha magacaabidda ee lagu magacaabo from candidates oo ka yimaada musharaxiinta ka imanaya distribute elections materials waxay qaybiyaan agabka doorashada
ayay u qaybiyaan to the polling stations. Polling stations waa maxay? Goobaha doorashada ayay u qaybiyaan. Macna qalabka sida kombiyuutaradii oo kale ama registeradii oo kale ama khadkii wax barinaya oo kale qalabka materialka doorashada marka ay ku soconayso ayay qaybiyaan oo returning officerku shaqadu qabanaya waa taas weeye. qodobka ku soo xiga uu shaqada kale uu qabto ay u igma yihiin returning officers waxa ka mid ah supervisors waxay kormeeraan the voting and counting of votes. يعني codayntii bay kormeeraan marka la codaynayo way kormeerayaan and counting of votes waxayna tiriyaan maxay codadkana way tirinayaan in constituency doorashadu marka dhacdana waxay sameynayaan in marka ay codayntiina marka ay kormeer ku sameeyaan si ay codayntu u socoto isla markaana inay marka ay tirintiina ka qayb galaan oo ay marka eegaan marka arrinta la socdaan iyaga maadaama saraakiisha meesha isda yihiin. Receives poll results waxay qabtaan oo soo gaadha officerka waxa soo gaadhaya uu qabanaya poll results natiijada goobta marka ka soo baxday from the polling stations goobta codaynta ka timid wixii result ee ka soo baxay goobta codaynta oo marka goobta hadii lagu codayo natiija ka soo baxaysa dhow oo xisbi hebel intaas soo helay ka kale intaas soo helay ama xildhibaan hebel intaas soo helay baa dhow la oranaya taas marka goobta codaynta waxa ka soo baxaya ayuu qabanaya marka isagu tally and verify waxay tiriyaan and verify oo xaqiijiyaan tally eriga tally means count waxay tiriyaan and verifies xaqiijin prove it to be true waxay xaqiijiyaan inay markaa ay waxaan sax yihiin oo ay way cadaynta markaa verification inay si wixii si jeegareeyaan aad u hubiyaan waliba inta badan had iyo jeer meelaha hubiyaan waxa weeye waa meelaha khilaafaadka had iyo jeer sanduuq waa tusaale la isku qabsanaya oo lagu murmi karaa had iyo jeer dawada dhacday in sanduuq la isku qabsado oo ay xusbiyada isku khilaafaan ama dadka markaa yani waxay doorashada galay isku qabsadaan taas had iyo jeer maxay sameynayaan waxay sameeyaan verification ay sameeyaan verification wixii ay cadeeyaan oo ay ka dhigaan wax markaa cadaan ah sanduuq in la furo oo la dib loo tiriyo oo la eego cid waliba waxay heshay qaabkaas la sameeyaa talina waa counting in wixii la tiriyo oo mid loo tiriyo oo talina had iyo jeer qaabka wax loo tirinta ayaa markaa duwana waa qaabkii the Roman numbers loo sameyn jiray tally oo saalaaro kale la yiraahdo kale qaabkaas oo kale 1 2 3 5 ka shanaad lagu soo koobo waa tallin waa tirada qaabka noocaas oo kale ayaa tally marka la yiraahdo qaabka marka loo tirayo tally marka la oranaya way shaqada kale marka ay qabtaan waxa kamid ah marka tally are verifies results of parliamentary election from the polling stations iyagoo marka raacaya ama polling station iyagoo marka tirada marka ka xaqiijinaya and announces the winner waxayna ku dhawaaqayaan the winner qofka guuleysta ah ee goobta salan doorashada ka dhacday oo kale ama area-da halka ay doorashada marka ka sameysantay qofka winner kaana way ku dhawaaqayaan ayaa taasina waa shaqadooda ka mid tahay waxaan ku xigsiinanaa presiding officer sarkaalka markaa isaguna u qaabilsan polling stationka waa maxay waa goobta doorashada ay ka dhacayso sarkaalka xukumaya ayaa loo yaqaanaa presiding officer wayniga halkan markaa markii dhawad ku sheeganay presiding officer an officer who is responsible for the elections of polling station waa qofka mas-uulka ka noqonaya ama sarkaalka mas-uulka uga ah komishiga doorashooyinka for election of polling station yani goobta doorashada qofka mas-uulka ka noqonaya ayaa la yidhahdaa presiding officer waaya haddaba they are appointed kuwan waxaa loo magacaaba markaa presiding officerska waxaa loo magacaabaya for each polling station goob kasta oo yani goob doorasho ayaa loo magacaabaya they perform the following duties waajibaadyada soo socda ayay qabtaan maxay qabtaan presiding officer qofka sarkaalka ay haysta goobta doorashada ama goobta codbixinta qofka haysta shaqadiis waa maxay waxa kamid ah see that every voter inuu eego oo la socdo that every voter in qof kasta codbixiye ahi votes inuu codeeyay only once hal mar yani one vote one man hal mar oo kaliya inuu codeeyo taasuu xaqiijinaya oo la soconaya uu eegayaa maadaama isagu goobtii uu haysto wuxuu la soconaya inuu qof walba hal mar u codeeyay oo 2 jeer iyo 3 jeer midna aan ku celin taasoo la socdo shaqadiisa kamid ah waa qodobka koobaad waxa kamid ah shaqadiisa to check inuu jeegarayo la socdo the ink is put yani whether the ink is put on the voter's finger
in khadkii qofkii dee farta tusaalahaan oo kale de waa ka had iyo jeer marka qofku codaynayo dee farta ayaa khad loo geliyaa khadkaa farta loo gelinaya dee inay ka muuqato calaamad ila waa calaamad muujinaysa inuu qofkan codeeyo ilaane taana waa inuu isaga la soconayo waajibaadkiisa ka mid tahay to check inuu markaa hubiyo whether the ink is put on in la mariyey calaamadii the voter's finger calaamadii markaa khadkeed in la mariyey qofka codaynaya waay taasina shaqadiisa ka mid tahay waxaa ka mid ah help voters inuu ka caawiyo dadka codbixiyaasha ah who are unable to mark ee aan awood u lahayn inay markaa ay calaamadiyaan their ballot papers waraaqooga codaynta dad baan awood u lahayn inay codeeyaan tusaale waxba akhriyi karinba ama sida dadka waaweyn oo kale ama dadka laxaad kale oo kale ayuu ka mas-uul yahay inuu caawiyo oo u calaamadiyo oo yidhaahdo waxa weya markaa qofkii markaa u calaamadiyo waay marka qodob kusii xiga waxaa ka mid ah cl the ballot boxes inuu xidho muxuu xidhayaa the ballot boxes yani sanaaduuqda codaynta ayuu xidhayaa after the voting is completed markuu soo gabagaboobo codaynta ay soo gabagabowdo yaa ka mas-uula in sanaaduuqda lasoo xidho waliba qaab loo xidhay day leeyihiin oo qaab dee bassword markaa u baahan markaa in lagu furo qaabkaasuu u xidhaya marka muxuu mas-uul ka yahay cl the ballots inuu markaa soo xidho the ballot boxes sanaaduuqda markaa codaynta after the voting is completed kadib markuu codku yani uu doorashadu ay codaynta markaa ay soo xidhanto ay dhammaystiranto in the presence of parts agents in the presence laakiin maxaa shardi ah markuu xidhayo iyo marka la tirinayaba in the presence joogitaanka inay meesha ay joogaan of parties agents wakiiladu oo tusaale ahaan oo kale dee xusbiyadii oo kale wakiilay soo dirsanayaan dee in wakiilkii joogo marka sanduuqii la xidhayo iyo sanduuqii marka la furayo iyo marka la tirinayaba waa inay representatives of the party waa inay xaadir ay joogaan qodobka u dambeeya count waxa uu tirinayaa ballot papers waraaqaha lagu codeeyey buu tirinayaa in the presence iyagoo ay xaadirin isla markaana ay yihiin ay joogaan of parties agents wakiilada xusbiyadu ay joogaan in the voting station iyadoo lagu tirinayo halkee lagu tirinaya codadka waxaa lagu tirinaya waraaqaha codaynta waxaa lagu tirinaya in the voting station goobta codaynta unannounced results waxaanu halkaa kaga dhawaaqaya maxay natiijada oo goobtii codaynta markaa uu sameeyo o kale dee la tiriyo codadkii la tiriyo dee isla goobta laftigeedii buu kaga dhawaaqayaa oo odhanayaa xisbi hebelle intaasuu helay kaasina intaasuu helay kaasina intaasuu helay markaa saas markaa de lagu kala baxaya dhow codayntii oy markaa ay ku soconaysaa markaa shaqada uu qabto qofka presiding officerku shaqadu qabto waa shaqada halkaa aynu ku sheegnay aynu nidhi shaqooyinkaasuu qabanaya waay every candidate haddaba musharax kasta is usual allowed waxaa had iyo jeer loo ogol yahay to have one representative inuu yeesho hal wakiil one agent representative means agent marka waa wakiilkii dee waa matelayay in every polling station goob kasta oo codayn markaa laga sameynayo waa inuu musharax kasta uu ku helaa qof agent ah oo markaa matelaya to see so u eego ama ula socdo how the voting being conducted sida doorashada ay u dhacso marka qofka sababtu yani meesha yani u joogaaba waxa weeye si u eego doorashada u dhacso ma corruption baa jira ma waxbaa la iswidaarinaya qaabkeeba wax u socdaan taas waa sababta usoo dirsanayaaba waa saa qofka agentka they are not at all allowed dadka agentiska ah yani the agents are not allowed agentiska ay xusbiyadu soo dirsanayaan looma ogola to intervene inay farageliyaan with the voting codaynta inay farageliyaan halkaasuu fadhiisanayaa qaabka wax u socdaan buu eegaya isagu laakiin ma faragelin karo codaynta laftigeedii and counting votes iyo tirinta labadaba midkoodna ma faragelin karo they act only waxay u shaqeeyaan oo keliya meesha u joogaanba as supervise as observers waxay keliya meesha u joogaan maxay as an observers inay markaa ay ahaadaan dad observersa yani overseeing what is going on inay ahaadaan dad markaa la socon kara oo markaa arkaya waxa meesha ka dhacaya halkaasaynu maanta cashirkeennii saddexaad aynu kusoo koobaynaa insha allah cashirkeenna kusii xiga ayaynu halkaa kasii bilaabi doonaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka
waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi